السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له يو ميلا جوكتان بوائد سلامي، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. waxaan rabaa insha Allah su'aal soo noqnoqotay inaan ka jawaabno. Su'aashaas waa ciida sidee loo tukan doonaa maadaama oo guryaha la joogo. Dadku waxay barteen inay imaam uu tujiyo ama meel bannaan lagu tukado ama masaajida. طبعا xil weyn de marka dadweynaha kama saareen qaabka loo tukanayo loo hogaaminayo salaadan imaamkaas hogaamin jiray, laakiin salaadani waa salaad u baahan kayfiye gaar ah iyo qaab loo tukaday leedahay. sideen marka uu tukana insha Allah ta'ala salaadu muwaajiba mise waa sunne. طبعا culimada qaar waxay yiraahdeen waa sunne muakkada, qaarna waxay yiraahdeen waa waajib. marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahirkayn inuu yiri soo baxa, dumarkii aan xijaab haysanin inuu yiri kuwa kale xitaa hasiyaan dharka ka soo tobal caareystaan, gabdhihii aan la soo saari jirin la yiri banaanka loo soo bixiyo ha ka soo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda. almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato barfuun iyo wixii cadraa la marsado yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobaya. marka intaan wali faatixa la aqrinin ragcada hore markii salaada la galo Allahu akbar la yiraahdo yaa 7 jeer la oranaya Allahu akbar الله أكبر سبحان الله الله أكبر 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 أكبر واترسنيسا 7 jeer kadib baad faatixada bilaabi, kadibna suurad baad ku dari insha Allah sida sunnadihi tawrana sabbix isma tadambana halataa in lagu aqriyo suuratul ghaashiya ama suurad alla suuradii Ilaahay ku waafajiyo ayaad ku daraysaa oo taqaan. ragcadii labaad markii intii la sujuudo la soo kaco oo Allahu akbar soo istaagta baad haddana bilaabi Allahu akbar 5 jeer. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر 5 jeer baa la dhahayaa. kadib baad haddana faatixadii bilaabi, kadib baad suuradda taqaano ku dari, kadibna salaadii sidaasay ku dhammaan oo 2 ragcadood oo hal atixiyaad ku dhammaynaysaa. salaada marka laga baxo khudba ayaa jirtay. ciida waxay khilaafsan tahay jumcada waxaa horeysa khudbada, salaaduna way dambaysaa, laakiin ciida waxaa horeeya salaada kadibna khudba ayaa loo istaagaa. khudbadu waajib ma aha, waxaana laga garanayaa rasuulku inuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii rabaaye ha dhageysto, qofkii rabaana ha iska tago. sidaas daraadeed inay la isbaraarujiyo oo maadaama dadku dee wacdi badan iyo carabi toona u wada sahlanayn, luqadii aad taqaan in la isku baraarujiyo, hal aayad iyo hal xadiis la isku baraarujiyo ayaa haboon insha Allah ta'ala. waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan baryaynaa inuu wabaagan iyo dhibaatadan inaga kor qaado, wala isu imaatinkii iyo damaashaadkii iyo maaragtay caafimaadkiina alla inoo soo wada celiyo. jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.